ciidamadii daacaddu ahaa hogaamiyihii hore ee koonfur galbeed Soomaaliya welise sheeganaya inuu yahay madaxweynaha sharciga ah ee koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo maalmihii ugu dambeeyay abaabul iyo dhaqdhaqaaqyo xooggan ka wada duleedka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay isla markaana habeen ka hor dagaal halkaasi kula galay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maalinimadii shalay ahayd waxay ku dhawaaqeen inay diyaar u yihiin qaadista howlgalkii ugu dambeeyay ee magaalada Baydhabo ay kaga saari lahaayeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ciidamo markaasi aad u fara badan oo markaa ku sugan goob barxada una u qudbeynayay afhayeenka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay isla markaana uu ciidamada hortooda ka sheegay in loo diyaar garoobo howlgalka madambeysa oo cadowga iyo sidoo kale mooryaanta ku soo duushay koonfur galbeed looga saarayo sida uu markaasi hadalka u dhigay afhayeenka oo wajigiisa laga dheehan karay cara iyo sidoo kale inuu markaasi aad uga xun yahay in lagala wareegay talada maamulka koonfur galbeed Soomaaliya si xoogana looga tuuray waxa uu sheegay inay diyaar u yihiin howlgal ballaaran oo ay doonayaan in Baydhabo iyo guud ahaanba koonfur galbeed Soomaaliya ay kaga xoreeyaan mooryaanta uu soo diray Xasan Sheekh Maxamuud sida markaasi uu hadalka u dhigay waxa uu sheegay in madaxweynihii muddaxileedkiisu uu dhamaaday Xasan Sheekh Maxamuud uusan haysanin sharciyad uu ku sii maamulo dalka isla markaana koonfur galbeed loo baahan yahay in lagu soo celiyo dowladii sharciga ahayd iyo nidaamkii kala dambeynta ee cadaaladda ku dhisna waa sida uu sheegay waxa uu yiri ciidamadeena geesiyaasha maalmihii ugu dambeeyay waxa ay ku jireen abaabul iyo diyaar garowgii ugu dambeeyay waxaana hadda qaadi doonaa howlgal ballaaran oo ka dhana mooryaanta ku sugan magaalada Baydhabo ee Xasan Sheekh Maxamuud uu halkaasi u soo diray sidoo kale wasiirka amniga koonfur galbeed oo ciidamadan la hadlayay waxa uu dhankiisa sheegay in maalmaha soo aadan guud ahaan bulshada koonfur galbeed dhagahooda ay maqli doonaan war farxad leh oo u wanaagsan kaasi oo ah inay ka xoroobeen duulaankii iyo sidoo kale faragelintii ku dhisneed gumaysiga ee markaasi loo soo waariday Muqdishona markaasi looga soo diray waxa uu yiri waxaan u baaqaynaa walaalaheena kale in la safan garabka cadowga inay ka soo baxaan isla markaana ay dowladooda iyo dadkooda dhinac ka raacaan koonfur galbeed Soomaaliya ayaa wajahaysa xiisado siyaasadeed iyo sidoo kale kuwa military oo iska soo horjeeda isla markaana u muuqda in marba marka ka dambaysa ay cirka isku sii shareeris dagaaladii ugu dambeeyay ee ka dhacay duleedka Baydhabo ee dhaxmaray ciidamada daacaddu ah Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay galaafteen nolosha askar badan iyo saraakiil muhiim u ahaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya kuwaas oo ku baxay iska horimaadka ciidamada Laftagareen daacaddu ay sidoo kale kuwa dowladda federaalka Soomaaliya wali xaaladdu ay kacsan tahay duleedka Baydhabana waxa ka socda dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeedo ay wadaan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen daacaddu ah oo maalmihii ugu dambeeyay soo bandhigayay ciidamo kale oo ka soo goostay dhinaca maamulka ku meel gaarka ah ee koonfur galbeed isla markaana sheegay inay diyaar u yihiin ka qaybgalka halganka dib loogu soo celinayo sharciyada guud ahaanba koonfur galbeed wixii ka soo kordha wararkeena dambe ayaad ku daawan doontaa muuqaalka like sar aragtidaadana qaybta faallada ee commentiga ku dhiiba